kulankan aqoon isweydaarsiga oo ku saabsanaa sida ugu wanaagsan ee looga faa'iideysan karo awoodda dhalinyarada Soomaaliyeed isla markaana loogu dhiirigelin lahaa inay hormuud u noqdaan horumarka dalka iyo xasilinta amniga ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho. kulanka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa waxaa furay ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Xasan Cali Khayre waxaana goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo ku dhawaad 1,000 arday oo wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho. gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayaa sharaxaad ka siiyay ka qaybgalayaasha muhiimadda kulanka. dhalinyarada Soomaaliyeed khaasatan ay u noqotaan markasul xiwaar amba center of dialogue meel afkaartooda ay u gudbin karaan dowladda, meel dowladda sicitaankeeda ay ka qayb qaadan karaan, meel ay danaha ay leeyihiin oo matqaan ayaga kooda ay ummadda dowladda ay u gudbin karaan inay noqoto. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa Xuseen gobolka Banaadir maamulkiisu u taagan yahay dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo fursad siintooda. annagu gobolka Banaadir ahaan waxaan u kala qaadanaa insha Allah mas'uuliyad gooni ah saaran duqi magaalada waa laakiin dhalinyarada waa مسؤولية نصارى waxay tahay insha Allah waa garab istaagi doona anigana shakhsiyan waxaad ku tashanaysaa qof dhalinyaro ah oo saaxiibkiina oo garab taagan. Mudane Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka ayaa cadeeyay in wasaaraddu ay wado qorshe lagu horumarinayo waxbarashada si dhalinyaradu ay u helaan aqoon ay dalkan ku maamulaan. waxaad tihiin awoodii lagu soo celin lahaa nabadgelyada dalka, aqoontiina dartiis iyo energy-ga ku jiro iyo maskaxdiina darteed. waxay la tahay taas markaad ogaataan dowladda Soomaaliya iyo madaxdeeda waa inay qaadataa iyadana kaalinteeda. wasaaradda waxbarashada waxaa ka go'an in mudnaan xoog leh ay siinaysa dhalinyarada iyadoo inta badan ku shaqaysa dhalinyarada. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo dhalinyarada ka qayb galaya aqoon isweydaarsiga u jeediyay khudbad aad u dheer ayaa tilmaamay in la joogo waqtigii dhalinyarada Soomaaliyeed ay dhexda u xiran lahaayeen dhismaha dalka ayna maanta haystaan fursad ay ku sameeyaan taariikh la mid ah taariikhdii wanaagsanada ay sameeyeen dhalinyaradii waddankeena u horseeday xurriyadda. waxaan xasuusinayaa marka haddii aad rabtaan idinka iyo carruurtiinuba inaad si wanaagsan u noolaataan, haddii aad rabtaan inaad ka tagtaan taariikhdii ay ka tageen dhalinyaradii ka mas-uulka ahayd xoreynta dalka, haddii aad rabtaan dadka Soomaaliyeed ee mustaqbalka ah oo idinka idinka dambeeya inaad uga tagtaan, haddii aad rabtaan inay halkan soo istaagaan oo ay idinka idinka hadlaan sida annagu haddaan uga hadlayno Soomaaliyeed, fursaddiinni waa maanta. waa inaad ka kacdaan fadhiga, waa inaad hurdada ka kacdaan, waa inaad is-abaabushaan ood isu abaabushaan sidii dowladnimada loo soo celin lahaa, waa inaad isku abaabulshaan Soomaalinimo ood qabiilka ka tagtaan, waa inaad isu abaabushaan sida aad ula xisaabtami lahaydeen ra'iisul wasaaraha, madaxweynaha, gudoomiyaha gobolka, baarlamaanka. xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa wada qorshe lagu dhiirigelinayo dhalinyarada Soomaaliyeed oo bulshada tir ahaan ka in ka badan 70% dhalinyarada Soomaaliyeed si ay u noqdaan ama ay u aqbalaan in uu dalkani iyaga sugayo inay gaarsiiyaan horumar uu caalamka kula tartamo. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.